Sanadkii 2016 ayay Wasaaradda Cadaaladda Norway hay'adda qaxootiga ee loo yaqaan UDI-da ku amartay inay dib u fiirin ku sameyso baahida magangelyo ee boqolaal Soomaali ah oo dalkan magangelyo ka helay nololna ka samaystay dhowrkii sano ee ka horreeyay sanadkaas. Norway ayaa la timid fikir uusan jirin dal Yurub ah oo la wadaagay xilligaas, ayna adkayd inuu rumeeyo qof walba oo caqli saliim ah ku fakarayo. Wuxuuna fikirka ku saabsanaa in ammaanka Soomaaliya, gaar ahaan kan magaalada Muqdisho iyo gobollada Koonfurta Soomaaliya, ay soo hagaageen, Soomaalida halkaas ka soo jeedana aysan u baahnayn in la siiyo magangelyo, maadaama ay dalkoodii ku noqon karaan, nabadgelyo ahaanna ku noolaan karaan. Fikirka ku saabsan in ammaanka Soomaaliya, gaar ahaan kan Muqdisho iyo guud ahaan Koonfurta Soomaaliya, uu soo hagaagay, qaxootiga deegaamadaas ka soo jeedana ay dalkoodii ku noqon karaan, ayaa waxaa ka biyadiidsanaa dhammaan ururada ka shaqeeya qaxootiga, kuwa qaabilsan xuquuqul insaanka, iyo weliba ururada waaweyn sida kan Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga. Balse Wasaaradda Cadaaladda Norway, oo fure u ahayd siyaasadda ajaanib nacaybka xisbiga FRB ee markaas xukunka talada wasaaraddaas hayay, dowladdana lug weyn ku lahaa, ayaa kiiskan Soomaalida ka dhigtay mid ka mid ah qorshayaal taxanaha oo siyaasadeysnaa oo ay rabeen inay ku qanciyaan dadka ku doortay inay la imaan doonaan siyaasad adag oo ka dhan ah ajaanibta. Warka ka soo yeeray Wasaaradda Cadaaladda Norway ayaa lama filaan ku noqday boqolaal qaxooti Soomaali ah oo Norway soo biday maciin magangelyo, kana dhigtay dal ay ka samaystaan gabaad iyo hoy. Dad badan oo dadka uu kiiskan khuseeyay ka mid ah ayaa ahaa waalidiin haysta carruur ay waddan ku dhaleen oo iskuulo u dhigto. Waxaa ka mid ah dhalinyaro shaqaysta oo waddanka si fiican ula qabsaday, iyo kuwo bilaabay waxbarasho jaamacadeed oo ay meel fiican nolosha u marayso, iskuna diyaariyay inay saldhig aasaas nololeed ka samaystaan dalkan cusub ee magangelyada siiyay. Kadib digniino ay u direen Soomaalida ay arrinta khuseysay, waxay bilaabeen inay warqado u diraan dad Soomaali ah iyagoo ku wargelinaya in magangelyadoodii dib u qiimeyn lagu sameyn doono. Sida ay sheegeen kuna celceliyeen marar badan oo ay Soomaalida la kulmeen, waxaa ku adkaatay qaabka ay u qiimeynayaan ammaanka Muqdisho iyo guud ahaan Koonfurta Soomaaliya. Su'aal kale oo dhib ku noqotay inay ka jawaabaan ayaa ahayd goorma ay Muqdisho ammaan noqotay, taariikhda ama maalinta ayaa laga soo bilaabay ammaanka Muqdisho, maxaa lagu cabirayaa amniga Muqdisho, yaa ka mas'uul ah haddii dadkaas la celiyo ay dhibaato ka soo gaarto gudaha dalkoodii, qoysaska carruurta waddanka ku dhalay ee iskuulada bilaaba, iyaga maxaa laga yeelayaa. Markasta oo su'aal arrintan ku saabsan la weydiiyo shaqaalaha hay'adda UDI-da mararka ay Soomaalida la kulmaan, waxay gacanta ku fiiqayeen Wasaaradda Cadaaladda iyagoo marmarsiyo ka dhiganaya inay iyagu yihiin shaqaale dowladeed oo amarka dowladda arrintan u xilsaartay fulinayo. Kadib muddo sanad ah oo ay la madax wareersanaayeen qaabka ay arrintan uga shaqeynayaan, ayay markii ugu horreysay taariikhda Norway qof magangelyo la siiyay xilli sanado ka hor dib uga celiyeen, iyagoo ku wargeliyay dhowr qof oo Soomaali ah inay dalkoodii ku noqdaan. Qaramada Midoobay oo la yaaban habdhaqanka Norway ee ka dhan ah qaxootiga ayaa dhowr mar Norway uga digtay kuna wargelisay inaysan ku sii socon go'aankaas, maadaama uu xadgudub ku noqon karo xeerka ay Norway wax ka saxiixday ee magangelyo-siinta qaxootiga. Waxaa fariinta Qaramada Midoobay garab socday boqolaal urur oo qaxootiga arrimahooda ka shaqeeya, kuwaasoo si dhow ula socday kiiska Soomaalida, rabayna inay arkaan sida ay UDI-du wax yeeli doonto ama fasiraad u saari doonto go'aanada ay kiiskaas ka gaarto. 3 wiil oo dhalinyaro ah oo ka mid ah dadkii ugu horreeyay ee magangelyada ay ka celiyeen ayaa racfaan go'aanka UDI-da ku saabsan u diray hay'adda UDI-da ka sareysa ee UNA, waxayna UNA oo dhageysay 3 kiis ee ugu horreeyay kiisaska dadkan Soomaalida ah ay su'aalo badan ka keentay qaabka kiisaskan loo fiirinayo ama looga shaqeynayo kiiskooda, waxayna UDI-da ka codsadeen inay joojiyaan ka shaqeynta kiisaskaas ilaa ay ka dhammaanayso kiisaska racfaanka. Kadib markii ay UNA dhageysatay racfaanka iyo cabashada dadka magangelyada laga celiyay, waxay sheegtay in inta badan dadka ay UDI-du kiisaskooda haysay ay xaq u lahaan karaan magangelyo, maadaama ay buuxiyeen shuruudaha deganaanshaha xilli ka horreysay xilliga uu soo baxay go'aanka dowladda ee dib u fiirinta magangelyada. UNA ayaa 2 ka mid ah 3 wiil ee dacwadda racfaanka qortay dib ugu soo celiyay magangelyadii ay UDI-du ka qaaday, waxaana halkaas ku buray xujadii ugu weyneed ee UDI-du u adeegsan lahayd kiisaska dhimanaya dadka Soomaalida. UNA ayaa sanadkii tagay UDI-da ku wargelisay in dadkii codsaday magangelyada wixii ka horreeyay bishii Maarso 2017 ay xaq u lahaan karaan magangelyo rasmi ah haddii ay buuxiyeen shuruudaha, wixii xilligaas ka horreeyay aysan gelin wax dambi ah wixii xilligaas ka dambeeyay. UDI-da ayaa kulan ay Soomaalida la qaateen bartamaha sanadkii 2019 ku sheegay inay istaajiyeen ka shaqeynta kiisaskaas, ayna codsi ku celiyeen wasaaraddii markii horeba amarka soo bixisay. Dowladda Norway, gaar ahaan Wasaaradda Cadaaladda, ayaa hay'adda UNA ku raacday soo jeedintii markii hore ka timid hay'addaas,
waxaana hadda UDI-da loo ogolaaday in dadkii codsaday deganaanshaha buuxiyeen shuruudaha wixii ka horreeyay 27 bishii Maars 2017 aan kiisaskooda dib qiimeyn lagu sameyn karin ayna xaq u lahaan karaan magangelyo haddii aysan jirin sabab kale oo magangelyada loogu diidi karo. Waxaa xusid mudan in mahad gaar ah loo celiyo 3 wiil ee Soomaalida ah ee go'aansaday in kiisaskooda aysan laabin ama dalka ka carin sida ay sameeyeen Soomaali dhowr ah, balse u gudbiyay hay'adaha kale iyagoo maraya wadada saxda ah ee sharciga. 2 ka mid ah 3 kiis oo UDI dib loogu soo celiyay ayaa Ilaahay ka sokow wax weyn ka bedelay qaabkii ay UDI-da uga shaqayn lahayd ama u fasiri lahayd kiisaska boqolaal kale ee Soomaalida ee safka ugu jiray.